wiilkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Shaarub fiidiyo ku baahay baraha bulshada ayuu digniin ugu diray wiil magaalada Hargeysa ku sugnaa oo sheegay inuu jacayl u qaaday Fartuun Balbalaarka. Cabdiqaadir waxa ku sugan yahay magaalada Burco oo dad badan u yaqaanaan gobolka Ragga. Waxa noo suurta gashay inaan ku booqano guriga uu ka degan yahay magaalada. waxaanu si adag u dhaliilay wiilka reer Hargeysa ee jacaylka u qaaday Balbalaarka, isagoona carabka ku adkeeyay inuuna helayn Balbalaarka balse isagu uu hanti u leeyahay, Burcana ku soo dhaweynayo in badanna uu baafinayay jacayl uu hayaana uu qarsanayay, balse markii uu maqlay wiil jacayl uu afka furtay. waraysi gaar ah oo na dhex maray aniga iyo Cabdiqaadir ayaa waxa u dhacay sidatan. halka xabaa ugu direeyaa ilmiyaray Hargeysa ka soo ciiyay ee laha Fartuun Balbalaarkan jecelahay ayay laxba laga yiri nin baad jacaylkiisa gabadhiisa leedahay waan jecelahay ma helaysid baa ku ma helaysid Fartuun Balbalaarka aniga jecel ana isku balbalaarnay sida kimista nin aniga hayn bas ku balbalaarnay adigu waxaad sheegtay gurigaad ku sharaxad waxaad tirina tahay wadnaha gabdhi aniga waan ku seexdaa waan ku soo toosaa way igu dhaxmeeranaysaa waa oxygen ku noolay Fartuun Balbalaarka ma helaysid adarha ku riyoon wata way ilaa inta in lag baad jeclay Cabdiqaadir fanaanada Fartuun Balbalaarka waxaan jeclaa ilaa markii Xasan Toob su'aalka galiyay waa markii ugu horeysay arko Fartuun Balbalaarka jira inaba caadi ay leedahay waxaana ku jeclaa jira inaba caadi ay leedahay quruxduna maaha wajiga waa jirka gabadhu hadii jir leedahay wajiga si kasoo wuxuu yahay taayir gurilaha oo ekaato dhidar oo ekaato waraba oo ekaato hadii jir leedahay way soconaysaa de wajiga maraba iska saarayba marka Fartuun Balbalaarka inaba caadi ma waa macaan way fariinta marka xaqan aad uga dirayso hadii codkaaga uu ba gaadhaba maxay tahay Cabdiqaadir Fartuun Balbalaarka waxa leeyahay baby oo ku jecelahay ana dadka kugu jecel noloshaydaad indhahaygu haddayna social media ka arag habeenkii ma seexdo maalintii ma joogo karo casarka waxa kuli casiriyuhu bay dhadhami maayo shaha casiriya haddana ku arag habeenkii ma seexdo ma gamaba haddana heesada daawan ama sawir aad leedahay Facebook ka arag marka waxa leeyahay baby haddaad maqlayso ama muuqaalkaygu hadduu ku soo gaaro nimanka aad leedahay please baby nimanka aad leeyahay iga daa Xasan oo ka haray ninka yar xuna sida xun xiirana mooto la saaratay iyo kan kale leeyahay kan gurigaad ku leeyayso iga daa baby iga daa dhibis isoo waxa doonaysaa inaan xamar ugu imaado nimanka laay iga daa baby aniga dib haykeed naftaydana xiyaalan iga daa baby fariinta kala u diray waxa weey baby gobolka Togdheer waa gobol laga taageero waana gobolka waa hooyada fanki abwaan ma jiro fanaan ma jiro haduu jirana waa gobolka soo baxo waana gobolka laga soo saaro nin fanaan noqday ma jiro haduu jirana waa fanaan gobolka Togdheer laga soo saaro reer Burco yar iyo weyn waa wada abwaan mid ka dhaca male had raawad maqal jirtay gabiguba waxay reer Burco waa wada fanaan fankana iyaga ansixiyo fanana ay reer Burco ansixina ma socdo mana soo baxo marka waxa leeyahay aniga ma 10 hayso xitaa haya marka nagu soo booqo oo gobol laga taageero wallahi sida lagu taageero cawaala aadan xitaa loogama taageero Burco sida laga taageero cawaala aadan baa looga taageerata fadan nagu soo booqo showyadan ku qabanayna oo ku qabanaya ana xitaa ku qabanaya wada shaar gobolka Togdheer laga yaqaan caab baa ka ana xitaa 10 hayso diyaari ku dhiibay. waqti kooban ayaa ka soo wareegay markii Cabdikariin oo ku sugan magaalada Hargeysa qolkiisa ku sharaxay magaca Balbalaarka sheegay inuu jecel yahay arrintaasi oo saameyn ku keentay baraha bulshada. Balbalaarka waxa tahay qof xushmad leh aan jecelahay respect weyn ma ku haya I love you Hargeysana oo ku soo dhaweeyna runtii 24 hours waxaan taagnaa airportka. fanaanada Balbalaarka ayaa ilaa hadda aan jawaab ka bixin codsiyadaas jacayl iyo hirdanka u dhaxeeya dhalinyaradaas jacaylka u qaaday. Sikriye Ilyas Jakarta, Burco.